السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيتي صاحبتي مي في عنتهين ما انت waxaan rabaa inaan qisan la wadaago qisadan waxay ka dhacday dhinacaas iyo Malaysia 1990kii haweeney Malaysian ah baa waxay sameysay way heesi jirtay waxa ka go'saneed inay maxaa la dhahaa ay noqoto caan weynaaday 90kii way diyaarisay heesihii bilowday inay heestay bilowday wixii u kala socon waayeen waxay sameysay marka dhowr jeer niman soo fureen laba jeer nin soo furay markii saddexaad nin guursatay ninkan kale saddexaad ay guursanayso wuxuu maxaa la dhahaa uu ka balan qaaday inuu xoog saari doono waxay jeceshahay okay heesiyaal waxa la duubay cajalooyin badan la duubay meela la geeyay suuqa la geliyay waxba suuq way galibaysay maxaa la dhahaa waxay noqotay wax flop ah oo aan sii soconaynin marka way fariisteen way sheekeysteen waxay dhaheen inaan business kala soo saarano waaye waxay ku fikireen 90kii way ku badneed ilaa iyo haddana waxaas way ku badan tahay wadankooda sixir 90kii odayaal oo waayeel oo meel fadhiyaan oo wax angaleel iyo wax isku garaacayaan oo jini iyo sixir iyo wadaan acuudu billahi min shaytaani rajiim baa jiray hadda laakiinse wadanka maadaama wadan muslim yahay dadkan ay ilbixeen miiskoostiisa lagu suubiyaa marka waxay haddana way suubtaan weli way suubiyaan marka waxaa dhacday waxay dhaheen waxaan sameynaynaa dadka lacagta leh dadka taajiriinta ah dadka dowladda ku jiraan baan waxaan u sameynaynaa jini sixir waxyaalahaas acuudu billahi min shaytaani rajiim marka waxay sameeyeen labadii qofood arrintaasi xoog ka saareen arrintii bay waxay ku noqdeen caan dadkii meesha ka filinayeen oo dad duq meel fadhiyo oo loo tagaayo oo wax isku qasaayo gabadhan yar oo meelaha cararaysa oo ninkeeda la socdo baa maxaa la dhahaa arrimaha usoo dhammeynaya labadood waxay noqdeen dadku xeel dheeriya waxyaalahaas oo aan ilaahay ogoleen lacag ay yeeshteen lacag ay dadka dowladihii iyo weelay u shaqaynayeen oo nin qof waxay leeyihiin waxaana ku qabanaynaa waxaana ku toosinaynaa lacag badan ay yeeshteen laba ville gateen gaariye iibsadeen waxay noqdeen dad kala xiran maalin maalmaha ka mid marka waxaa u yimid wasiir oo rabo markaas meesha uu fadhiyo meel kasii weyn iyo shacbiyad badan inuu yeeshto rabo ninkaas magaciisa waxaa la dhahaa Maslan Idris ninkaaseetu wuxuu rabay inuu basiishkiis ka fiicnaado ayadana waxay u ballan qaaday nin ka horeeyay hadda ka hor oo wadankaas laga jeclaa oo dadka jeclaayeen oo shacbiye badan haystay oo maxaa la dhahaa kala arag ahaa oo basiishkiisana fiicnaa ninkaas wuxuu haystaa marka koofiyadooda ay iiga xirtaan dadka muslimiinta wadankaas degan iyo ul buu wataa ushaas iyo koofidaasi ka balan qaaday inay u keeni doonto xeerarka iyada ee taqaano ay kusoo keeni kartay maxaa la dhahaa oo noloshiisa iskala furi doonto waayuu yiri ninkii wuxuu sameeyey lacagtii tirada badneed uu u balan qaaday wuxuu usoo horumarsiiyey in la eg haf iyo 10 dhulna wuu siiyey marka ninkii waa la ballamiyey waxaa la yiri caawa noo imaaw waxaan ku sameynaynaa oo ku nadiifinaynaa waxaan ku diyaarinaynaa horumarkaaga caawa noo imaaw 10kii habeenimo wuu yimid ninkii albaabka waxaa ka furay nin waardiya u shaqaynayay shaqaale haystaan nin shaqaale haysteen 24 jir ah ayada iyo ninkeeda iyo ninkaas 40 jirka guriga joogay ninkii waa la soo geliyay gudaha la soo geliyay waxaa la dhahay haye saan ku qaado waxaan kuu sheegaynaa habkii ah waxaa sameyn lahayd waxaa la dhahay waad seexanaysaa waad isfidinaysaa koraad fiirine markaa kor fiirisid korkaaga biyo iyo waxaa lagu dhaqaayaa iyo fiyooryaal badanaa la keenaa korkaaga lagu dhaqaayaa amba ubax sida u taqaanidba korkaaga lagu dhaqaa kadibna lacag baa cirka lagaaga soo daadinayaayo korkaaga lagu daadinaa laakiin waxaa la rabaa in indhaha isku xirtid hayuu yiri dhulkuu jiftay fiyoorihii biyihii baa lagu dhaqa korkiisii indhihii buu isku xirtay dadkan waxaa buruntu ahaa adduunyana buruntu ahayd mindiye iyo minshaar iyo ameesh buruntu u ahayna ninkii markuu isfidiyey oo sugayay inay lacag korkiis kusoo daadato baa maxaa la dhahaa ninkii la shaqaynayay meesha joogay wuxuu soo qaatay mindi weynaatay markaasoo qoorta 3 jeer ugu dhiftay oo dhinac dhiga waxay sameeyeen maqaarkii ka siibeen qoortana way ka jareen 18 gabalna way ka dhigeen haddaa isweydiisid maxay waxaas sameynaya markaa istiraadin waxaa leedahay dadkaaniitood waxay yaqaanaa wax la dhahaayo sacrifice waxaa la sacrifice gareynayaa ibni aadan dad waxaa hadda ka hor maqlay oo maxaa la dhahaa oo guri degan oo sheekadan maa sheeko kale waaye dad oo maxaa la dhahaa sameynayaan ilmahooda ama dad gurigooda la joogo inay qol ku soo xiraan ay ku daayaan jiniya siinayaan
acuudu billahi min shaytaan rajiim xaada dhanaa istaagaysa wax maanta ka hadlo waxay siinayaan jin iyo sacrifice u samaynayaan asaa iskale meeshaasuu ugu xiran yahay wuu ku qurmaa meeshaas ku jiraa raashin ma la siinaayo meeshaasuu ku xiran yahay marka si ay iiga ku helaan nolol iyo maal iyo caafimaad badan iyo maxaa la dhahaa horumar si u helaan hal qof ay ugu xirayaan meel hadda kor sheekaas waa maqle sheeka ahaana ku maqle marka sheekadaan iga dhexgeline aan horena igu sii kaxeeye maxaa la dhahaa ninkii 18 gobol marka laga dhigay qoorta laga dhigay maqaar kale laga siibay waxaas dhan waxaa loo sameynaya waxaa waaye sacrifice loo sameynayaa naftooda wax ugu qabanayeen asiga waxa uma loo sameynaya ninkii waa la baxay guri yar oo xaafadda ku yaalay oo gurigooda agtiisa ahaa oo jajabna ceel dheeraada laga qoray ceelkiya waxaa lagu riday gabaladii waa lagu shiray meeshii sirtina waa lagu qariyey lacagtiina naagtii waxay samaysay waxay soo iibsatay furniture ee guriga ka bedeshay gaariyadii cusbeenaysatay maxaa la dhahaa wejigeedana plastic surgery subsatay waa soo taagatay waayeelnimadii kasoo taagtay waxay samaysatay inuu lagu suubiyo dhalinyaro laga dhigo wiilka la shaqeynaya marka wiilka la shaqeynayay baa waxaa la siiyey xoogaa lacagaa la siiyey ninka marka wuxuu isticmaalaa daroogo magaalo soo wareegayo daroogada lagu soo qabtay wuuna xanaagsanaa nin xanaagsan u ahaa meeshaasay ku kashafmi doonaan ayaga nin xanaagsan u ahaayo shaqada badan xoog badanna wuu qabtay magaaladan iska celi waa la dhahay xoogaa yar la siiyey ninka markii lasoo qabtay oo meesha lagu xiray daroogada maa maskaxdiisa ka raaysa la yiri mase ciil uu qabo daraadiis oo waxaan iskaga sheegay naftiisa uu soo nacay wuxuu yiri ninkii horta waa la waayey wasiirkii waa la waayey markaa la waayey maalmo marka la waayey oo shirarkii iyo meelihii la rabay laga imaan waayey raadisaa loo gaday wiilkii marka maalintii la qabtay iyo raadintiisii isku timid wiilkii wuxuu yiri ninkaaseetood saasaa dhacday meeshaasaa lagu dilay meeshaasaa lagu duugay xalkana saas waaye qofkaasitod waa isla qaarijine waa lasoo baxay meeshiyaa la imaaday marka magaaladiyaa la imaaday horta labadoodiyaa lasoo qabtay meeshiyaa la fagay waxaa laga soo saaray 18 gobol oo la daldalaacay maqaarkii laga gooyey waa laga soo saaray markii xibnihii la xisaabay waxbaa ka maqan xibnaha wixii ka maqan sheega meesha ka bixisana la horta ko dilitaanka waaba disheene waaba la haayay xibnahan maqan meesha geyseen soo sheega ilaa hadda waxa ay soo cadeeyeen malaha dadka waxay dhaheen marka way cuntay oo ayada naagta cuntay oo maxaa la jinigiya waxaas u sheegay maxaa la arintaas iyada ku maqan tahay hilbahaas iyada ku maqan yihiin marka naagtii oo nolosheeda raadin jirtay inay noqoto caan hadda iyadoo qof dishay qof gogoosatay adduunyo qastay oo sixirey ah bay waxay u maleysaabo kaamirada laga duubayo ee dadkii sawirada ka qaadayeen journalistida meesha taageen markastaba iyadoo dhoola cadeynayso baaba laga qaadayaa markastaba dharka marka la soo gelinayo dhar waxay dalbanaysaa oo maxaa la dhahaa atriish camal waxay iska dhigaysaa naag atriisha ah masawira laga duubaa markii gaashada lagu xiray dadka waxay ka sheekeeyeen marnaba iyadoo ka jaban tahay lamaba arkinba markastaba way faraxsan tahay oo maxaa la dhahaa sheedaamadii wixii iyo waxyaalihii ku shaqeynayeen maskaxdeeda korkeeda ku shaqeynayeen marka waxaa lagu markii la fatashay wax dhan ogaaday waxaa loo xukumay saddexdoodiba ayada ninkeedii iyo wiilkii wax la dilay waardiyaha ahaa in qoorta laga jiro la dilo marka waxay samaysay maalintii la dilayay waxay dalbatay ilmahay qabtaabo ilmaheedii u imaadeen waxay tiri dad fiican noqda saan wax yeela waaba la tatalis ilmihii way faraxsan tahay naagtan waxaan ii keentaan meesha laga cuno take awayga KFC meesha la dhahaayo iga keen raashin aan cuno raashinkaasi cuneen saddexdooda waa la isla qaaday waana la dilay meeshii ku dhinteen intaas rabnaa in wadaago saaxiibayaal khayr isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu